We've got 100 guys here at the house. How could somebody not know where the hell he is? I don't know if anybody can. waa canug yar oo ay dhaleen waalidiin sabool ah misna soo galeeto ku ah dalkaasi Mareykanka balse noqday gaangistarka ugu caansan taariikhda Mareykanka milyaneer iyo waliba abaabulaha kiisas dambiyeedkii ugu halista badnaa inta u dhaxaysay 1920kii ilaa 1930kii waana ninka ay maafiyo waliba oo cusub magaciisa dadka kaga argagax geliyaan ayagoo leh waxa soo laabtay Al Capone nolosha Al Capone waxay qabsatay maanka guud ee bulshada waxaana shakhsiyadiisii gaangistar ahaaneed laga qoray buugaag aad u badan misna laga jilay filimaan badan maantay waxaan muuqaalkan ku eegaynaa nolosha gaangistarka Al Capone iyo sida uu ku noqday gaangistarkii ugu caansanaa taariikhda Mareykanka magacaygu waa Maxamed Xuseen ku soo dhawaada xalaqadeena maanta magaciisu waa Alphonse Capone waxaase loo yaqaanaa Al Capone sidoo kale waxaa loogu naanaysaa Scarface wuxuu dhashay Janaayo 17keedii 1899 wuxuuna ku dhashay Brooklyn ee magaalada New York City waalidiintiisu waa Talyaani waxaana lagu kala magacaabaa Gabriele iyo Teresina Capone qoyskan saboolka ah ayaa u soo hijrooday dalka America iyagoo raadinaya sida ay u heli lahaayeen nolol wanaagsan labadan waalid waxay dhaleen 9 caruur ah midkooduna wuxuu ahaa ninkan noqon doona gaangistarka ugu caansan Mareykanka ee Al Capone Al Capone aabihii wuxuu ahaa timo jare hooyadiina waxay ahayd dawaarle ama harqaanle marka la eego nolosha qoyskiisa ma jirin qof saadaalin kara inuu noqon doono qof hanti leh amaba gaangistarka ugu caansan guud ahaan America Al Capone wuxuu ahaa arday wanaagsan xilligii uu dhigan jiray dugsiga hoose ee Brooklyn laakiin wuxuu bilaabay in uu la yimaado dib u dhac taa oo dhalisay in dib loogu soo celiyo fasalka 6 xilligaasina wuxuu ahaa mid isaga ciyaara goobaha doonta ee xeebta Brooklyn maalin maalmaha ka mid ah baa waxa dhacday in macalinka wax barayay uu si xun u garaacay wiilkan yar balse Al Capone iskama uusan fadhin ee uu u jawaab celiyay macalinka asagoo wax ku dhuftay kadib arinkii waxay gaadhay maamulihii iskuulka maamulkiina wuxuu qaylo iyo garaactiin ciqaab kaga dhigay Al Capone maalinka wixii ka dambeeyay Al Capone dib uguma soo laaban iskuulkii waqtigan kadibna waxa bilowday isbedelkii noloshiisa qoyska Al Capone waxay u guureen guri xoogaha ka wanaagsanaa midka ay degnaayeen ka oo ku yaal xaafad ka tirsan Brooklyn oo lagu magacaabo Park Slope halkan waxay ahayd goobta uu Al Capone kula kulmay labada shaqsi ee ugu muhiimsaneed noloshiisa kuwa oo kala ah gabadha noqon doonta xaaskiisa mustaqbalka Mary Coughlin iyo macalinkiisii qaaska ahaa ee Johnny Torrio xilligaasi Johnny wuxuu qaban jiray oo uu madax ka ahaa meel lagu ciyaaro qamaarka oo u dhaweyd guriga uu degnaa Al Capone kadib Al Capone wuxuu bilaabay in uu u qabto shaqooyin yaryar inkastoo Johnny uu isaga tagay magaalada Brooklyn balse waxay lahaayeen xiriir aad u dhow Al Capone kadib markii Johnny uu ka tagay magaalada Brooklyn wuxuu bilaabay in uu shaqeeyo wuxuuna ka shaqeynayay shaqooyin kala duwan isagoo ka noqday xisaabiye dukaan lagu iibiyo nacnaca shaqadan in badan ma uusan ku nagan xilligaana wuxuu ku biiray gaangistarada wadooyinka sida South Brooklyn Robberies kadib wuxuu ku biiray 40 Thief Juniors labadaba waa guutooyin yaryar oo caan ku ahaa qaribaada iyo dambiyada fudfudud oo ka dhaca magaalada New York waqtigaasi sanadii 1917kii Johnny wuxuu Al Capone baray nin gaangistar ah oo lagu magacaabiyay Frank Yale ka oo shaqaaleysiiyay Al Capone asagoo ka noqday kabiyeeri ama ilaaliye baarka Harvard Inn ee ku yaala Coney Island halkaasii ayay ahayd goobtuu Al Capone ku kasbaday naanaystiisii Scarface qisada ka dambaysa naanaystan ayaa ah mid aad u yaab badan habeenada ka mid ah ayuu hadal xushmad daro ah ku dhahay qof dumar ah oo baarkaasi ka caweynaysay hadalkii waxaa maqlay walaalkeeday oo halkaasii isna joogay misna wuxuu bilaabay in uu la dagaalo Al Capone kadib wajiga ayuu kaga dhuftay midi taa oo Al Capone wajiga ka gaarsiisay dhowr calaamadood marka wax laga weydiiyo calaamada wajiga kaga taal wuxuu oran jiray waa dhaawac iga soo gaaray dagaalkii koowaad ee adduunka markii uu jirsaday 19 sano
Al Capone wuxuu guursaday Maya Kavlin dhowr isbuuc kadib markay u dhashay wiilkiisii Albert Francis. Kadib markii mas'uuliyaddan ay soo wajahday Al Capone wuxuu bilaabay inuu raadsado shaqo kaafin karta nolosha qoyskiisa cusub. Sidaa daraaddeed wuxuu u dhaqaaqay magaalada Baltimore halkaasi oo uu ka raadsaday shaqo isagoo diiwaan haye u ahaa shirkad dhisme. Sanadii 1920kii Al Capone aabihii ayaa geeriyooday. Kadib dhacdadaasi xanuunka badan, John Torrio wuxuu ugu baaqay Al Capone inuu yimaado magaalada Chicago si uu ula shaqeysto. Al Capone ma uusan diidin fursaddii, waa uuna ka faa'iideystay. Johnny wuxuu maamuli jiray xilligaasi ganacsi ku saabsan qamaarka iyo dumarka jirkooda ka ganacsada. Laakiin markii la dhaqangeliyay xeerka mamnuucaya iibinta qamaarka, Torrio wuxuu diiradda saaray ganacsi cusub misna ka faa'iido badan midka hore, ka oo ahaa ka ganacsiga muqaadaraadka. Al Capone wuxuu bilaabay inuu la shaqeeyo Johnny isagoo si caqliyeysan u kala wada hawlaha uu qabanayo. Johnny wuxuu la tacajibay xirfadaha Al Capone wuxuuna si dhaqso leh u dalacsiiyay si uu ula noqdo shirko. Laakiin Al Capone wuxuu bilaabay inuu u dhaqmo si ka duwan nolosha Johnny. Sababtoo ah Johnny wuxuu iska dhigi jiray qof ku nool dabaqada hoose oo kale. Al Capone wuxuu bilaabay inuu yeesho sumcad, wuxuuna bilaabay inuu suudka ku labisnaado mar waliba iyo inuu qamriga qaaliga cabo mar waliba. Wuxuuna sidoo kale bilaabay inuu gaariga kaxeeyo isagoo sarqaansan. Ilaa maalin ay dhacday inuu gaari taxi ah ku dhuftay, waxaana xiray booliska. Tanina waxay ahayd markii ugu horeysay ee xabsi la dhigo. John Torrio ayaa bilaabay inuu la hadlo dadka uu ku lahaa dowladda gudaheeda si ay u damiintaan ninkan, waana la soo daayay. Al Capone wuxuu bilaabay inuu iska daayo falalkan kadib markii qoyskiisii ay ka yimaadeen magaalada Brooklyn. Xaaskiisa iyo wiilkiisa oo ay weheliyaan hooyadiisa iyo walaalihiisa yaryar dhammaantoodii waxay u soo guureen Chicago. Wuxuuna iibsaday guri iska heerka dhexe ah oo ku yaala South Side Chicago. Kadib isku day dil ah oo la rabay in lagu qaarijiyo Johnny Torrio sanadii 1925, Johnny wuxuu go'aansaday inuu isaga tago shaqada uu hayay misna uu ku laabto dalkaasi Talyaaniga, taa oo mas'uuliyadda oo idil ku soo dulrogtay Al Capone. Al Capone wuxuu noqday madaxa ganacsigii, wuxuu bilaabay inuu horumariyo hawlihii khamaarka iyo inuu balaariyo dhulka ay ka taliyaan kooxdooda, isagoo laayay kooxo badan oo halkaasi kula xifaaltamayay. Sidoo kale kuma uusan ekaan noloshiisii hore, ee wuxuu bilaabay inuu sii horumariyo. Wuxuuna gudaha magaalada Chicago ka iibsaday qasri weyn, halkaasi ayuu ka bilaabay inuu ku noolaado nolol raaxo leh iyo qaab nololeed dadweynaha ay wada og yihiin. Wargeysyada waqtigaa jiray waxay ku qiyaaseen hantida Al Capone dakhli dhan $100 milyan. Dhacdadii ugu caansaneed ee dhiig lagu daadiyo waxay ahayd xasuuqii la geystay maalinkii jaceylka ama Valentine's Day. Maalinka oo 7 xubnood oo ka mid ah baandooyinka ama gangistarada Burgess Moran lagu toogtay garaash ku yaala dhinaca waqooyi ee magaalada Chicago bishii Febraayo 14keedii 1929. Horaantii 1929, Al Capone wuxuu ahaa mid xukuma ama gacanta ku haya ganacsiga sharci darrada ah ama khamaarka iyo kan ganacsiga dumarka ee magaalada Chicago. Laakiin waxaa jiray rag kale oo kula tartamayay arrinkaasi, waxaana ka mid ahaa ninka ay Al Capone muddada dheer wada tartamayeen, Burgess Moran. Moran wuxuu horey isugu dayay inuu dilo John Torrio iyo Al Capone, balse markii Al Capone uu xilka la wareegay wuxuu go'aansaday inuu dilo Moran uu dhinac isu dhaafiyo, waxaana ku helinayay arrinkaasi Jack Magran. Maalinkii 14aad ee February 1929, rag oo hogaaminayo Magran ayaa toogtay 7 qof oo ka tirsanaa kooxda Moran. Inkastoo Moran uu ka badbaaday xasuuqaasi, Al Capone wuxuu ku sugnaa guri uu ku lahaa magaalada Miami, laakiin bulshada badankoodii iyo saxaafaduba asaga ayay ku eedeeyeen. Mana dhicin booliska in ay cadeemo dambi ku helaan Al Capone. Xilligii xabsiga, iyada oo laga jawaabayo eedeymo badan oo Al Capone loo soo jeediyay, madaxweyne Herbert Hoover wuxuu ku amray dowladda dhexe in ay sii laba jibaarto dadaalkeeda ku aadan sidii ay Al Capone ugu soo cadeyn lahaayeen canshuur lunsi ama faldambiyeed. Wadada kaliya ee banaana waxay ahayd in lagu raadiyo canshuur lunsi. Marka dib loo laabto 1927 ayay maxkamadda sare xukun ku soo saartay in dakhliga laga soo saaro howlaha sharci darrada ah la canshuuro, taasoo dowladda siisay kiis adag oo ay ku maxkamadeynayso Al Capone. 5tii bishii Juun 1931, dowladda Mareykanka waxay ugu dambeyntii ku xukuntay Al Capone 22 dacwadood oo ah canshuur lunsi.
inkastoo ay dowladdu haysatay cadeymo adag, haddana Al-Kabuun wuxuu kalsooni ku qabay inuu kaga bixi doono xukunka ciqaab yar misna uu kula gorgortami doono, balse garsooruhu wuxuu cadeeyay inuusan ogolaan doonin wax heshiis ah. dacwaduna waxaa loo gudbiyay baaritaano rasmi ah. intii lagu guda jiray baaritaanadii, Al-Kabuun wuxuu adeegsaday hubkiisii ugu fiicnaa, kuwa oo ahaa laaluush iyo cabsigelin. in xeerbeegtii gacanta ku haysay kiiskaasi uu laaluush siiyo ama uu cabsigeliyo, balse marka la joogay dhamaadkii kiiska, garsooruhu wuxuu bedel ku rogay gebi ahaanba xeerbeegtii ku shaqada lahayd kiiska. Al-Kabuunna waxaa lagu helay dembigii, waxaana loo diray xabsi 11 sano ah. Al-Kabuun wuxuu ku qaatay 2 sano ee ugu horeysay oo uu xirnaa xabsiga federaalka ee Atlanta. kadib markii lagu qabtay laaluushsiinta ilaalada xabsigaasi, Al-Kabuun waxaa loo diray xabsigii caanka ahaa ee Alcatraz, halkaasi oo uu kaga go'doomay caalamka. muddo kadib, Al-Kabuun wuxuu bilaabay inuu la tacaalo caafimaad xumi, oo waxaa ku dhacay cudurka neurosyphilis, ahna caabuq ku dhaca hanaanka neerfaha, ka ugu dambeyn ku sababay cudurka waalida. kadib markii uu soo qaatay 6 sano iyo badh xabsi ah, Al-Kabuun waxaa la sii daayay 1939kii, waxaana la geeyay isbitaalka dhimirka ee ku yaala magaalada Baltimore. halkaasi wuxuu ku sugnaa muddo 3 sano ah, caafimaadkiisana hoos ayuu u sii dhacayay. Al-Kabuun wuxuu ku noolaa maalmihii ugu dambeeyay noloshiisa magaalada Miami, isaga iyo xaaskiisaba, wuxuuna u dhintay xanuun kaga soo booday dhanka wadnaha 25 January 1947. Al-Kabuun wuxuu ahaa nin la jecel yahay, isla markaa kuwa kalena ay neceb yihiin, waxayna shakhsiyadiisii ahayd mid ku nool buugaagta iyo filimada oo in badan laga jilay taariikhdiisa. waxaana ugu caansanaa filimada lagu magacaabo Al-Kabuun, ka oo la jilay 1959kii. waxaan rajaynayaa in aad ka wada bogateen muuqaalkan. fadlan like garee oo la sii wadaag asxaabtaada. haddii aad ku cusubtahay channelkan ku soo biir, waa inoo muuqaalka kan xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.